ku sagootineynaa oo aan ku amba bixinaynaa gurmadkii koowaad بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan ku amba bixinaynaa gurmadkii koowaad ay u dirto walaalaheena lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho taasoo ah wax tiiraanyo ah ummadda Soomaaliyeed ka wada danqatay gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxa amba baxaya oo dawladda Puntland maanta ay dirtay 4 oo dawo ah waxaana qaadaya wafdi ballaaran oo ka kooban sanad iyo wasiiro iyo jira nurses iyo TV xaaladaas oo qaybsadaan waxaan ku sagootinaa halkaan hadeertaan safarkii iyagoo diyaar garoobay dawadiina la raray insha Allah hadii rabbi idmana saacada kadib aan jeynayno inay gaarsiiyaan walaalaheena dhibaataysan ee magaalada Muqdisho ku sugan waxaan rabaa hadeertaan ku soo dhaweeyo wasiir xildhibaan Siciid Surcad xildhibaan Puntland oo isaguna kelmadiisa oranaya inaan qayb ka noqono gurmadka loo gurmanayo walaalaheena magaalada Muqdisho runtii musiibada ku dhacday hawsha aadka culus dadka badan ku dhinteen kuwa badan ku dhaawacmeen kuwa badan wali maaragtay lala yahay inaan qayb ka noqono team caafimaad ah dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad maaragtay wasiiro ka tirsan maaragtay Puntland senataro ka tirsan maaragtay ka soo jeeda Puntland laakiin ka tirsan aqalka sare maaragtay dawladda federaalka Soomaaliya runtii waa arrin weyn maahan runtii maalin la farxo ma maanto kale waa maalin maaragtay murugo wixii Soomaaliya ku dhacay wixii magaalada Muqdisho ka dhacay maalinta Sabtidii wixii ilaa hadda maaragtay wararka waxaan naxdinta leh marka khayr badan ayaan u rajaynaynaa tiimka iyo daawada waa ognahay dawladda federaalka runtii inay iska xil saartay hawshaas inay ilaa hadda abaabulkeedu uu maaragtay iyo gurmadka qaran ee la sameeyay inuu meel fiican marayo marka inaguna maaragtay halkan maanta ku jirno runtii waa arrin muhiimad gaar ah iska leh waxa Puntland oo dhan ka bilowday gurmad dhaqaale aruurin ah oo magaalooyinka dhan masaajidda idaacadaha meel walba waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maalmaha soo socdana dhaqaalihii oo maaragtay lacag ah inuu gaari doono inta tiimku ay xamar ku sugan yihiin marka khayr badan ayaan u rajaynaynaa dhaqaatiirta xildhibaanada wasiirada khayr badan baan u rajaynayaa inta maaragtay wali lala yahayna waxaan rajaynayaa insha Allah taala in la heli doono dadka maaragtay wali maqan oo runtii muruga ahayd isbuucaani taariikhda Soomaaliya runtii iyadoo mar walba muruga ku jirtay iyo dagaalo ku jirtay laakiin tan dhacday waligeed ma aysan ka dhicin dalka taariikh ragii geystay oo dambiga geystay madow ay ka galeen Soomaaliya oo maanta ay tahay qof kasto Soomaali ahna in uu ka qayb qaato gurmadkaas oo aan aaminsanahay waxa uu sababay qaraxaasi ku ekaan mayso maanta iyo berri sanado soo socda ehelada Soomaaliyeed ayaa saameyntiisa ayay negative ah ku leedahay rag baa ku waayay caruurtoodii oo dhan dad baa hantidoodii oo dhan ku waayay dad baa lixdood lixaad ku waayay waxa moodaa inay tahay xanuun muddo badan hayn doona ummadda Soomaaliyeed la rabana inaan isku bahaysano la rabo qof kasta oo annaga naga mid ah jeebkiisa inuu wax ka bixiyo dawlad kasta oo ka tirsan dawlad goboleedyada Soomaaliya dawladda federaal ka tirsanna loo baahan yahay inay khasnadahooda iyo wixii hayaanba furaan ay garab istaagaan walaalahood anigoo runtii ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal Puntland waxaan leeyahay waajib lidinku leeyahay baad gudanaysaan waxa lidinkaga mahad celinaya ma aha waana runtii in la isku danqano oo rabo la gaarsiiyo ummadda gargaarka loo baahan yahayna waa wax muhiim ah message kale aan dirayana waxay tahay falkaani argagixisada ah waxa uu hadii wax laga ay la rabo in laga barto waxa laga baranayaa arxan darada dadka waxaan soo maleegay oo la yaqaan oo argagixisada ah sidii ummadda Soomaaliyeed ay isku bahaysan lahayd uga hortagi lahayd oo la rabo in loo midoobo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyaduna ay iska kaashadaan sidii ummaddaani u badbaadin lahaayeen waa dad waxba aan reebaynin oo raba inay dadkani xasuuqaan waxa loo baahan yahay marka siyaasad oo ku saabsan xasilinta dalka in laga wada midoobo oo laga hortago oo waxa khilaafaadka dadka u dhaxeeyana meel la dhigto la wada midoobo loona midoobo sidii looga hortagi lahaa midda kalena waxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa
in dowladda dhexe la garab istaago dowladda dhexe waa dowlad cusub hal sano wali ma jirsan waxa loo baahan yahay dadaalka ay ku jirto ay ku caawinayso dadkii gurmadka inaanu garab istaagno Puntland hadda wafdiga ay dirayso qayb ayay ka tahay garab istaagaas waa message wada shaqayn iyo dadkaani inay dad mid yihiin oo ehel oo dalku uu ka dhaxeeyo oo dadnimadu ay ka dhaxayso waxaan runtii mar labaad leeyahay teamka halkan oo runtii wasiiro iyo dhaqaatiir iyo maanta aan halkan joogo joodiga ka geysatay waxaan aad ugu mahad celinayaa mas'uuliyiintii iga horeeyay oo halkan ka hadlay kelmadii ay ka yiraahdeen anigoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland anigoo ku hadlaya magaca shacabka Puntland madaxweynaha dawladda Puntland xubnaha labada golaha labada gole aqalka baarlamaanka Puntland iyo ma garanaysaa garsoorka intaba magaca Puntland maanta anagoo ku hadlayna waxaan rabnaa dareenkayga inaan halka ka muujino dareenkaygu wuxuu yahay marka koowaad inaan muujino dhibaatadii dhacday xanuunka ay ummadda Soomaaliyeed ku leedahay iyo ficilkii arxan darrada ahaa ee ummadda Soomaaliyeed loo geystay ee joogtada ma aha dhabtii ficilada noocan ah dhacay mid cid gaar ah loola dalnayahay tani waxay muujinaysaa shacabka Soomaaliyeed arxan laawayaasha u soo kacay inay doonayaan inay xasuuqaan waxna aan ka reebin arrintaas marka waxay u baahan tahay sidii la isaga kaashan lahaa gacmaha la isaga qabsan lahaa meelna looga soo wada jeesan lahaa shacabka Soomaaliyeedna ay dareenkeeda u muujin lahaayeen dhibaatada iyo kuwa ka waaweyn oo ay habeen iyo maalin ku foolan yihiin sidii ugu geysan lahaayeen dadka Soomaaliyeed hagardaamooyin noocana iyo kuwa ka xanuun badan sidii aan meel uga soo wada jeesan lahayn taas waa fariinta koowaad oo aan rabno inaan halka ka jeedino waxaan rabnaa xanuunka inaan la qaybsano qoysaskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay dhibaatadu ka soo gaartay waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto naxariis janna aan ugu bishaaraynaynaa ilaahayna uga baryaynaa inuu dambi dhaafo ay helaan waxaan rabnaa iyadana inaan intii dhaawacantay ee dhibtu gaadhay aan Ilaahay uga barino in iyagana Ilaahay u booga dhago waxaan leenahay qaraabadii iyo ehelkii iyo dadkii dhibtu gaartay xanuunka in gaaray mid la mid ah in gaaray waa in garab istaaganahay mar walbana waa in garab istaagi doonaa taas ayaana maanta halkan naga wada oo insha Allah biidnillaahi kariim anagoo matalayna shacabka Puntland iyo dawladda Puntland ba meel kasta ay joogaan inaanu hawshaas aan hormuud ugu noqono aan madaxweynaha iyo golihii wasiirada go'aanka ka soo baxay oo ahaa in sidaan loo baxo arrintan hordhac weeye sida uu sheegay mas'uuliyiintii iga horeysay sheegeen waxaan rabnaa mar labaad inaan xoojino shacabka Puntland meel kasta uu joogo iyo dawladda oo iskaashanaya inaan bogaadino ololaha weyn ee ballaaran ee loogu jiro sidii loo tacwiil celin ama ka qayb qaadasho nooc kasta leh aan ugu ururin lahayn dhaqaale intii karaankeena ajar baynu ku helaynaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dareenka ay qaateen shacabka Puntland meel kasta ay joogaan inay arrintaas u kacaan mar labaad iyo mar saddexaad baan xoojinaynaa waxaan rabnaa kelmadda kale inaan ugu baaqno shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta dhibaatada dhacday berina meel kale ay la damacsan yihiin Ilaahay sharwadayaasha Allah ina ka qabto waxaan rabnaa iyaguna inay gacan buuxa dal iyo dibad sidii walaalaheena dhibtu gaadhay ee xaqiiqda dhibta aadka u xanuun badan ay gaadhay waxba waxa ka yar oo aan la qabsan karno ama u qaban karno ama aynu ku garab istaagi karno meel kasta aan joogno inaan iyadana doorkeeda qaadano fariintaas haddaan nahay dadka reer Puntland waa gudbinaynaa iyadana ugu dambayn Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qulubta ummadda Soomaaliyeed isu soo jeediyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa sarwadayaasha inaan ka guuleysano Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii aaminsanaa sarwadayaashu inay cid gaar ah ku socdaan ama qolo gaar ah inay ku socdaan caruur waayeel oday inna inaan reebayn maqnaantii maanta tan dhacdayba iyo waxyaalihii hore aan u soo aragnay fariinteeda ugu dambayso aan direynaa waxay tahay taa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay ku baraarugto inay u kacdo ninkii naxariis ka haysay ama qaraabo ku leh ama ehel ku leh sarwadayaasha inaan cidna reebayn in la ogaado aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad u baahsantihiin waa in ka mahad celinaynaa siisaagotintiina insha Allah biidnillaahi kariim guur iyo khayr baan ummadda Soomaaliyeed u rajaynaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaan leenahay
intii dhibaatada مسؤوليتي قورينا وحنا رنايا وحويان لا شغل على واجب ومسؤولية لقولها هذا ترى بنتنا إن قريب كيستان رجال كسعودة عافمات نوع والبلد إنه ولا نقدر نستعجل أنا ونوحنا إن هذان نسيم سوسايتي بنتنا وبشتري كبنتنا إن نقدر تاجنا ولا رأي سومالي ذي بوجاري بنتنا وحضرين أفضل مقولة سوبية ذكر لما يرضى علماء دوينك اللي دون بنتنا أنتوا عيابات كده يمكن تشارع بنتنا وحكم ذا درينك دقائقي أو إن حالة 4 ساعة أما هبين ندي طبعاً هبين نمو أما كوي طبعاً هبين نمو أنا أركي صدقني يرو قبل ويلله أو روني العجو أو وتأكونه أو ضحك كورني العجو تاس ومقالكم موجنا يساء درينك ده تكجرة وأنهروا جدا والدنيا ده ولا تنما وحنا إسلايا هي أرنكاس كانت الدولة جيستي يتنشعب كوا سيدا حتى أسعة الله مدينيو إن سيداسنا أن أود لنا قرنا مديني الدولة مديني وحنا نتوجهنيا ضد الصومال الناس أسمعنا تكبلابين بفكاس جاري سيدا اللوجو مدوب قرنا هذا الصومالية لكن دحدنا مع كسرنا وحيابها كجر المقدقة أو كلادات سنانتا وحنا وجود بكنا وحيابها تاجنا ودن والدولة نمو يمنمو تفرار يقيب سنانتا لو حكينيا إن سيدا نهانو أو كلابور سنانو هذه ما سنتي سفر سلام الله يتيم كبحية أو أوجه إن ينتيم هذا أضج marka la dhaqaatiir neersinka dhamaan dadka baxay oo dhan iyo wasiiradaba dad adag oo karti badan aan ku ogahay waana dardaaran adagaan siinayna wuxuu yahay inay kaalin ka geystaan kana muuqdaan aysan seexan insha Allah ilaahayna waxaan u baraynaa khayr jazaaga inuu siiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh